halkan maanta waxaan lagu soo dhaweynayaa waa orodayaankii caanka ahaa iminkana tababaraha caanka jaamac maxamuud aadan jaamac karaacin waxaa halkan mas'uuliyiin iyo dhalinyaro haday tahay baad sportska iyo bahadii saxaafadda inta halkan ku suganba maanta waxay diyaar u yihiin inay soo dhaweeyaan waxaan iskaga gulguli doonaa munaasabadeena waxaan ku soo dhaweynayaa ugu horeyn agaasimaha waaxda ciyaaraha cabdirashiid caydiid yaasiin si inoogu furo kulankeennan iyo ciyaaraha fudud ee dunida jaamac maxamuud aadan jaamac karaacin oo aan leenahay ku soo dhawow dalkaaga hooyo kaas oo safar ugu maqnaa dalka Urdun Bahrain oo uu orodyahanadii uu isagu tababaray ay kaalin fiican ka galeen martiqaad gaar ahna ka helay boqorka dalkaasi Bahrain jaamac dalkaaga ku soo dhawow jaamac waxa uu aayay ciyaarihii fududaa marka laga tago dadka afka Soomaalida ku hadla oo uu taageeray Afrika oo uu taageeray waxa mahadiyay adduun weynihii oo uu ka noqday hal door dunida kaalin weyn ka qaatay waxa lagu tamariyay taladiisii tababarkiisii iyo tilmaantiisii xiriirka fudud ee ciyaaraha marti sharafta faraha badan qof walba maamuuskiisa sharaftiisa ku salaamaya waxaanu soo dhaweynaynaa runtiina xaq mudan inaanu soo dhaweyno orodayaankii weynaa caalamiga ahaa tababaraha caalamiga ah jaamac karaacin oo ah tababaraha keliyaata ama sportiska Soomaaliland markay noqoto maanta lagu faani karo oo bilad dahab ka sita ayaanu ku soo dhaweynaa Hargeysa jaamac ku soo dhawo baan kulaanahay dalka jaamac safarkan wuxuu kaga yimi dalka Bahrain ومدحتي مسؤوليتي سوق سريسة ولا صاكل ماي وحن تعال لها إن حرير كبحرين يسوى مالي لنا وتامع كشقايو وأوذا وحنا آدي هذا كان تعال هنا فرين وقدروا ضمان شعب وينها قبل كتقدر يبرعوا تامع قيمها وكل يقرن كسوى مالي لنا يا سبورتس كبا برعوي قرموي ما أنت أوكله برعما كي نقطه inay taamaco kale ku faanto oo ay tira taamac gobolkayga degan ama ka dhashay ayay ahayd laakiin waxaan u sheegayaa gobolka Togdheer waxaan codsanaynaa in macaal hodheerka isha burco iyo taamac baan u soo wareejin doonaa magaalada Hargeysa hadii ilaahayna waxa runtii aad iyo aad dareenkayga u abuuraya maalgelin oo inuu sidaa isaga xigno waa runtii waxyaabaha mar kasto ka hadlaya meelaha fagaarayaasha sportiga waxyaabahan mar walba niyadeyda kiciye aan aad ka u jecelahay waxa weeye inay dadka sportigu inay mar walba dadka kale iska jecel yihiin kuwii hore u cuslaaday iyo kuwa markaa ku jira fiilkuba oo aanay iyagu xisbiye kala lahayn oo xitaa xisbiyada kala duwan ee siyaasadda ku colka iyagoo ka kala socda ay isugu yimaadaan haddana meelaha qof iyaga kamid ah lagu soo dhaweynayo xagga siyaasadda lafteedana waxaan rajaynayaa inaynu mar walba nagu reeray sportiga xisbi aynu ku midaysanay furan doono oo magaca sportiga marka yar muuqda hadii la hayraado oo taana hadii la hayraado aynu ka faa'iideysan doono runtii waxay noo tahay sharaf weyn bay noo tahay inaynu jaamac oo kale leenahay waa runtiisa Yuusuf aanu waran maayo reer Burca ku faani waayay Yuusuf waxaan leeyahay dagaalka reer Burca dagaalka laba bilaabay dagaalka inagu bilaabay inaga daayo laakiin haddii dee Burco waxoogaa hoos yara dhigtay anu Burco dhan ma adeynayay waxaan malaynayaa waa shakhsiyaadun Burco dad badan oo aad u wanaagsan oo sportiga jecel baa jiro xagga xamaasadda sportiga inay Soomaaliland iyagu ugu horeeyeen uguna wali horeeyaan ayaa badda la sheegay marka qof sportiga uga baqan ma inay reer Burco inay xumeeyaan marka waxa weeye laakiin waxaan u malaynayaa un dhangada Yuusuf tadase waxa weeyaan uu yar canaanayaayo de waxoogaa yar kordhiyaan uu leeyahay socodka marka runtii farxad bay noo tahay inaan halkan ku soo dhaweyno farxad weyn bay tahay inaan maanta ka soo qayb galo soo dhaweyntan tababaraha caanka ah orodyahankii hore jaamac maxamuud aadan jaamac karaacin oo aan runaantii ku faano ku dayano mudan in muxuu ahaa intan uu imaka yahay iyo inka badan ba muxuu ahaa loo ixtiraamo loo tixgeliyo guulaha uu gaaray isagu shakhsiyan uu muxuu ahaa sports ka gaaray iyo ka imaka dhalinyaradii ama muxuu ahaa dadku tababarayay caalamka meel walba u ordaya ay gaareen waanu ku faraxsanahay farxadaas maanu la qaybsanaynaa jaamac dalka ay ku soo dhawow kolley qofku markuu dhintaa la yiraahdo waad mahadsan tahay ama saas uu ahaan jiray ama saas uu ahaan jiray laakiin anigu adigoo nool baanu maanta ku leenahay achievementka iyo waxaad qabatay shakhsiyan iyo qarnigaad u qabatay
waanu kugu waad ku mahadsan tahay. waxaynu joognaa boodkii cigaal Hargeysa waxaa gacan dambe taagan ciyaartooygii orodada oo dhammaan gobollada Soomaaliland ka socda iyo dadkii isboortka jeclaa in badan oo jeclaayna weyma lahayd marka hore waxaan leenahay jaamac uu soo dhawow jaamac malaha dadku si kala arkayaane jaamac mishan gaar buu wadaa waxaan jecelahay intaan uga ogeysiyo jaamac mishan gaar ah aqoonsigii Soomaaliland through sport madaxweynaha hore ka hadalay dhowr jeer aniga asaguba waxa ugu dhaqsaha badan ee aqoonsiga Soomaaliland lagu gaari karaa waa ciyaaraha way fara badan yihiin waa ciyaaraha fudud markaynu jaamaciyada ka hadlayno isagoo shakhsi ah ayaa markuu caalamka cararo calanku huwa yahay ee uu sharafta u sidaa waxbu ka yimi waxbu ka tacna dadkii aan ogeyn markaasi Soomaaliland ayaa halku ka yimi ogaanaya marka way ka balaarantay ciyaaruhu saynu moodino ciyaaruhu waxa dadka labada wadan ee xiriirkooda go'o ee istila ee dhawaato ka dhaxdo shayga ugu horeeya ee gacmaha isku saaraan waa ciyaaro marka ciyaaruhu waa aqoonsiga koowaad waxaan uga mahadnaqaynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland in intii marka ay gacanta ku qabatay xukuumaddu ciyaaruhu ay horumar talaabsadeen maanta xiriirka kubadda cagtu halkay maraya wala socotaan ciyaarihii fudud wala socotaan wax badan baa inoo dhiman waxaan leenahay maanta jaamac soo hooyay sharaf maaha oo kaliya ta Soomaaliland dhammaan dadka afka Soomaaliga ku hadla meel kasta ay joogaan Afrika iyo guud ahaanba caalamka wuxuu ka noqday qof ka tilmaaman baad moodaa in reer Soomaaliland ku baraarugeen jaamac guulihiisu aad bay u fara badan yihiin guulo fara badan oo kuwa ka horeeyay buu soo hooyay tanaad moodaa inay meel naga yara khuseynayso oo aynu aad ugu yara baraarugnahay haddana reer Soomaaliland marka guushani waa guulihii faraha badnaa ee soo daba taxnaa ee uu soo hooyay mid ka mid ah tii u dambeysay iminka iyadoo ay jiri doonaan kuwa badan oo kale insha Allah uu soo hooyin doono waxaan ka codsanayaa anigu jaamac waa saaxiibkay sports meehi laakiin meel kale aan isku soo galnaa jaamac wax kale aan isu nahayo geel jirayaal baanu nahay xagga geelaan iska soo galnaa marka anigoo ku hadlaya afka geel jirayaasha oo dhan waa hambalyeelaya jaamac geeley maaha waa geel jire qofka geeladi waa geel jire af Soomaaliga rasmiga waxaanan jaamac u soo jeedinayaa ka codsanayaa in uu waqti dheeraada geliyo horumarinta dhalinyarada ciyaaraha fudud ee Soomaaliland dhalinyaro aad iyo aad talent u leh aad iyo aad u firfircoon baynu leenahay waan aaminsanahay haddii waqti badan uu geliyo in ay ka soo bixi karaan kuwa badan oo adduunka caan ka noqda aad baan u soo dhaweynayaa halyeygeenna ciyaaryahankeenna macallinkeenna jaamac aadna waan ugu hambalyeynayaa mar labaad aadna waad u mahadsantihiin haddii aanay ila shaqaynin aanay gaadhin guusha aanay gaadhin inankayga Ayman oo gacanta ku hayay inta badan iyo Farxaan oo labaduba hayeen assistant coach si ahaa waayo anu dalkan u badnaa halkaas dusha ka maamulayay marka iyagana waa mahad celinaya halkan dad aanay filim ba maanta imaan waxa salaade muxuu Zakariya iyo Muuse ka hor imanaya laakiin waxa surprise ku noqotay sidaas Salebaan xagla toosho ex wasiir uu sheegay anu gala jirayaal baa nahay dibadna waxa hadduu ku imanay xirdigeel kugu imanaya laakiin isma lahayn ciyaari buu kugu imanaya iyo xaggan waa ninkii horeeyay geelisiiyay way xagla toosho saddex nin baa hayna waxa Salebaan iyo Umar Qoobna jiyaag fadhiyo isagu xidhay hasha ku siin ma halkan ay ku jeeysaa maamul bacaaneedu keenay hawdheelka ninkana waxa Calaad Daal Airways Calaad bisaguna hay'ad kale waxaan Axmed Faarax Cadare waxa weeyaan waxaan isna wuxuu dhashay khamiisna waxaan dhashay jimci 6 saacadood bay ka soo horeeyay ifkay ka soo horeeyay marka ilaa iyo xilliga ilaa imika isku xiranahay waa nin footballer waa nin muxuu ahaa aan aad isugu dhawanahay baan garanaysaa u salaamay isagana waxa kala salaamay Cabdisayid ninkii football shaqaatay koobkii ciyaar wanaaga Soomaaliya oo dhan 1976 Cabdisayid oo braaw ciyaar jiray iminkan ila jooga tarasay waxaan leeyahay sidaa uu sheegay Cadare burca way jecelahay anna waan jecelahay iyana way jeceshay dhalinyarada oo dhan baan isku xirnay dadka oo dhan qof in yar dan gaar leh way ahayd taasina iska dhamaatay kana soo guuri maayo tayrna u xidhmaayo hudheelka tanna waan la joogaa dalka oo dhan baynu degaynaa wada shaqaysanayna
waxaan aad ugu mahad celinayaa dhalinyarada qoraxda maanta usoo jarmaadee timi ilaa iyo intaas soo taagnayd waxaan doonayaa inaan baaqi diro dhalinyarada orodadu waa individual waxa weeyaan ciyaaraha keli ah qofkii dadaala meel buu gaari karaa uu ka madha dhalin karaa laakiin waynu ka soo godaa qofka anagu de markaanu yarayna ordi jirnay tababaryaal weyn maana lahayn oo fahamsan waxaan laakiin dadaal baan u keennay iminka ciyaarihii olympic waad arkayseen 3 inan oo Soomaaliya ayaa bilada ka helay labana waxay heleen silver midna wuxuu helay maar de olympic oo dhan taas fardo system lagu helay waad aragtay waa guul aad iyo aad u weyn soo weetid maxaa Soomaaliya runtii ka wadaan biladina ugu horeeyay ma farax bilada badan buu ka helay ninka la Maxamed Salabani qadar bilad buu ka helay laakiin markii horeysay 3 nin oo Soomaaliya ay ka helaan 3 biladood olympic kaliya meeshii markaa socday marka waxaan rabaa dhalinyarada iga dambeysay ay soo dhaweysteen inaan u sheegaydo hadda dadaashaan sida ilmadaas oo kale ayaa idinku ka daawanaya muddo madaka Facebook iyaga haystay waxaan leeyahay anna waan garab taaganahay waan la shaqeynaynaa waan soo dhaweynaa wixii afkaara maamul iyo garanaysa ayaan aqoon ku dhaana waan la garab taaganahay waan idin mahad celinaa mar labaad